idaacadda VOA oo si toos ah aad uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 11 iyo 19 mitirban iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhagaystayaal dhammaantiinba waa aroor arbaca ah bisha agosna waa 16 sanadkan 2017 idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkaan idinkaga soo jeedinaya jacfar maxamed kuukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aad idaacaddeena saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xiisada ka oogan maamul goboleedka Hirshabeelle ee ka dhalatay go'aankii uu baarlamanku xilka kaga qaaday madaxweynaha maamulkaas oo cirka isku sii shareertay. waraysiyo kala duwan iyo falanqayn ayaynu idinkaga haynaa. qof kasta intuu meel iska fadhiistay inuu yidhahdo hebel xil ka qaaday xilla firma qaado ma xilkana laysuma dhiibo. madaxweynaha sharciga lagu doortay dastuurkii ku qoran tahay sidii loo doortay siduu ku dhaca dastuurkii ku qoran tahay ha loo maro si dastuuri aan la hariyo. marka dadka ku andacoonaya madaxweynaha maxaa loo sugi waayo muxuu difaaci waayo sax ma aha qofku waa la soo eedeeyey maxkamadiisa waxay saaran tahay baarlamaanka. walays weyn ayay keeni kartaa haddaanan caqliga shaqaynin oo inta la fadhiista aanan laga wada shaqayn maslaxadii dadkaas loo doortay dib weyn ayay keeni kartaa walaadka. waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada dalka Kenya oo codaynta doorashadii sanadkan si aan horey loo arkin uga qayb qaatay. maxaa sabab u ah? waxyaabaha ku kalifaya dhalinyarada in ay ka qayb qaataan waxaa ka mid ah iyagoo wax bartay oo dalkoodii wax u bartay oo mujtamacoodii wax u bartay rabana in ay isbeddel weyn ay sameeyaan. sidoo kale waxa ay ka daaleen dadkii ayaga ka horreeyey amaba aysan isku jiil aysan ahayn. sidoo kalena waxay rabaan inay meesha ay ka saaraan musuqmaasuq. waxaa kaloo aanu idiin haynaa jacaylka ka sikaanisid ma soconaysaa siriqda ka baxbaanisid maba siimaysaa layiri kusayri badaanisid sidaa maaha layiri. heestaasina qaybta dambe ayaad kaga bogan doontaan iyo weliba qodobadii ugu dambeeyey ciyaaraha, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. allaha u naxariista waxaa xalay magaalada San Diego ee gobolka California ee dalkan Mareykanka ku geeriyooday wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Jaamac Barre. geerida Cabdiraxmaan Jaamac Barre ayaa waxaa VOA-da u xaqiijiyey goordhoweyd wiilka uu adeerka u yahay Diiriye Maxamed Siyaad Barre oo hadda ku sugan gobolka Virginia. marxuumka ayaa waayadan dambe xanuunsanayay. Cabdiraxmaan Jaamac Barre ayay da'diisu ahayd 79 sano. wuxuu xilal ka soo qabtay dowladdii kacaanka isaga oo soo noqday ra'iisul wasaare ku-xigeen, wasiirka maaliyadda iyo wasiirka arrimaha dibadda. wuxuu ifka ugu tagay 15 carruur ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho. faahfaahinta geerida Cabdiraxmaan Jaamac Barre waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda. burcad la rumaysan yahay in ay koonfur afrikaan yihiin ayaa muwaadin Soomaaliyeed ku gubay dukaankiisa oo ku yaala magaalada Durban ee gobolka KwaZulu Natal ee dalka koonfur Afrika. weerarka ayaa waxa uu dhacay fiidnimadii Isniintii xilli dukaanka la weeraray uu shaqaynayay. burcadda dilka geysatay ayaa marxuumka ku amray in uu siiyo amaba sheego lacagta dukaanka taala. muran kadibna batrool ayay ku shubeen oo ay dab qabadsiiyeen, waxaana halkaasi ka soo gaaray dhaawac culus oo uu xalay u geeriyooday. marxuumka waxaa dukaanka kula sugnaa 2 ruux oo Soomaali ah kuwaasoo ay u suura gashay inay naftooda la baxsadaan. qofka geeriyooday ayaa lagu magacaabi jiray Axmed Jaliil Cali Xuseen, waxaanu ka mid ahaa ganacsatada sida weyn looga yaqaano gobolkaasi. waa Soomaaligii saddexaad ee bishan gudaheeda koonfur Afrika lagu gubo, iyadoo tirada dhimashada guud ee Soomaalida lagu dilay dalkaasi sanadkan ay kor u dhaafayso 30 kale. dhegeystayaal aad nagala socotaana waa
idaacadda VOA qaybteeda afka Soomaaliga oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. isniintii la soo dhaafay ayaa baarlamaanka Hirshabeelle oo ku shiray magaalada Jowhar waxa ay sheegeen inay xilkii cod aqlabiyada kaga xayuubiyeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble. arrintaasi ayaa waxaa ka abuurmay buuq siyaasadeed iyo weliba mid sharci. qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee Hirshabeelle ka soo jeeda ayaa tallaabadaasi sharci darro ku tilmaamay, iyagoo xildhibaano shalayto go'aanka Cosoble xilka looga qaaday taageerayna ku tilmaamay kuwa faragelin iyo qas ku haya dowlad goboleedkaasi. waxaanay soo jeediyeen in si hoose loo maareeyo muranka Jowhar ka aloosan. aragtidaasi waxaa qaba xildhibaan Maxamed Xasan Qoone oo khadka telefoonka iigu warramay. walaal xildhibaanada kasoo jeeda Hirshabeelle federaalka Soomaaliya waxay ila tahay doorkooda inuu yahay meeshii laga soo doortay markaas inay nabad ahaato, inay odaynimo ka shaqeeyaan, in haddii khilaaf yimaado khilaafkaas ay ku baxaan, in khilaafkaas ay xalliyaan, in dadka walaalaha oo dowladda ordanka oo sharci lagu soo doortay inay khilaaf ka abuuraan oo khilaafka ayaga u horseedaan. horta aad iyo aad ayaan uga xumahay. aniga waxaan leeyahay xildhibaan ka soo jeeda Hirshabeellaan ahay. waxaan leeyahay Hirshabeelle dowlad ordan ah oo dowlad hadda la dhisan 9 bilood waaye, u baahan in la garab istaago, u baahan in lala taliyo, u baahan in wax loo qabto. sidii lagu dhiso waa la ogyahay, taariikh dheer laga soo maray in la dhiso. meesha hadda ay joogtay laga sii wado ayaan soo jeedinaya insha allahu tacaala. khilaafka la horseedayo iyo faragelintan aad ka dhawaajisay yay tahay cidda ku haysa ee aad tuhmaysaan? waxaa ku haayo xildhibaanada hadlay ee sheegay inay taageersan yihiin waxa oo lagu sheegay sharci darrada oo laga sameeyey Jowhar. aan taageersanay dhaheen waxa waaye dadku waxa rabaa haddii shay kasta waxaa lagu dhisay sharciyadda ay wax kasta leeyihiin oo dhowraan rabaa. qof kasta wuxuu jecel yahay hadduu sheego, qof kasta wuxuu neceb yahay la sheegaya. dadku marka khilaafku waxa waaye, waxaan leeyahay xildhibaanada ka soo jeeda federaalka Hirshabeelle ee federaalka ah iyo senatarada yiri waxaan taageersanahay wixii dhacay sharci ma ahayn, saxna ma ahayn. waxaan leeyahay xildhibaanada ka soo jeeda Hirshabeelle iyo senatarada ha ka shaqeeyaan nabad. haddii khilaaf uu jiro, khilaafka jira ha la xalliyo, khilaafka ha la wajaho, dadka ha la walaaleeyo, ha la isu soo dhaweeyaan. maadaama markii horeba si dimuqraadiyada lagu soo doortay oo baarlamanku ay u codeeyeen madaxweynaha ee hadda xilka ay ka qaadeen, maxaad ku diidaysaa in ay xilkana ka qaadi karaan oo qaabkii markii horeba doorashadiisa loo maray haddana xilka qaadistiisa loo maro? walaal doorashada waa ogolahay in xilka laga qaado qof kasta waa la doortaa, sharciyada lagu doortaa, sharciyada lagu ridaa. qof kasta intuu meel iska fadhiisto inuu yidhahdo hebel xil ka qaaday, xil la iskama qaado. xilkana laysuma dhiibo. madaxweynaha sharciga lagu doortay, dastuurkii ku qoran tahay sidii loo doortay, sidii ku dhaca dastuurkii ku qoran tahay, ha loo maro si dastuuri aan leeyahay aniga. haddii baarlamaanka xaq ay u leeyahay iyagaa shal doortay way ridi karaan, laakiin baarlamaanka waxaan leeyahay ha u maraano si dastuuri ah, ha loo maro sharciyada waxay dhigayso. maxay tahay kaalinta madaxweynahan waxaan aaminsanahay inuu madaxweynaha Hirshabeelle uu yahay Cali Cabdullaahi Cosoble oo aan xil laga qaadin, si dastuuri loo ku yahay. haddii xilka laga qaadaa baarlamaanka way joogaan, si dastuuri xilka looga qaado. maxaad cuskanaysaa markaad leedahay waa macadda VOA oo si toos ah aad uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 31 iyo 19 mitirban iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. waa aroor Arbaca ah, bisha Agostna waa 16 sanadkan 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jacfar Maxamed Kuukaay iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xiisada ka oogan maamul goboleedka Hirshabeelle ee ka dhalatay go'aankii uu baarlamanku xilka kaga qaaday madaxweynaha maamulkaas oo cirka isku sii shareertay. waraysiyo kala duwan iyo falanqayn ayaynu idinkaga haynaa. qof kasta intuu meel iska fadhiisto inuu yidhahdo hebel xil ka qaaday, xil la iskama qaado. xilkana laysuma dhiibo. madaxweynaha sharciga lagu doortay, dastuurkii ku qoran tahay sidii loo doortay, sidii ku dhaca dastuurkii ku qoran tahay, ha loo maro si dastuuri aan leeyahay. marka dadka ku andacoonaya madaxweynaha maxaa loo sugi waayo, muxuu difaaci waayo, sax ma aha. qofku waa la soo eedeeyey, maxkamadiisa waxay saaran tahay baarlamaanka,
وليس وين أي كان كذا دان عقلي شقين أو